daawadayaal waxaynu ku sugannahay gegida diyaaradaha ee Jomo Kenyatta International Airport oo halkaasi oo lagu soo dhaweynayo taliyaha madaxweynaha Mareykanka Xamse Warfaa. dadweynaha aad u fara badan oo isugu jira aqoon-yahano dhalinyaro haween iyo bahda ciyaaraha dhaqanka ayaa gegida diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ku soo dhaweeyay la taliyaha sare ee arrimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Xamse Warfaa oo socdaal ku soo gaaray magaalada tani Nairobi. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalkani Kenya ugu horeeyay xildhibaanka degmada Kamakunji Yusuf Xasan, xildhibaanka Wajar South Maxamed Cadow, wakiilka haweenka ee deegaanka Garissa Udgoon Siyaad iyo xildhibaano kale ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii garoonka ku soo dhaweeyay. magaalada tani Nairobi ku soo dhaweyno Xamse Warfaa oo sarkaal sare dowladda Mareykanka kamid ah la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ninka Soomaaliyeed ee ugu xilweyn maamulka Joe Biden oo booqasho noogu yimid iminkana wadankii hooyada Soomaaliya ka yimid annagu haddaan nahay Soomaalida reer Kenya waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waxaan leenahay mudane ku soo dhawow dalkaagii labaad iyo shacabkii Soomaaliyeed halka deganaa sharaf baan inoo tahay inaad doorbiday inaad soo marto oo aad soo booqato. السلام عليكم. سولو ظروف مساعدة ما أنا وزا كنت It's an honor for us, the leadership of Kenya, to welcome Xamse Warfaa, who is a senior advisor to the State Department of the United States of America. Xamse has a history in Kenya. He's not a visitor here. He's coming home, and we're saying welcome home, Xamse. Welcome home, and we are all happy that you have paid us a visit. And we really thank all those who came out to welcome Xamse. And it's a real honor for not just the Somali community, but the entire population of Kenya that Xamse is with us today. Thank you very much. haddaan nahay Soomaalida Kenya maxaan leenahay dalka waa dalkaaga wax waa ka leedahay soo dhawaaw aadan ugu faraxsanahay noo imaataan leenahay Soomaalida Kenya especially kuwa Garissa anaga waxaan u hadalnaa kuwa Garissa degan waxaan leenahay soo dhawaaw kuwa Wajar waa loo hadlay but on behalf of the leadership maxaan leenahay soo dhawaaw Soomaali meel ay joogto waa hal walaalkeen baa tahay dadku jecel u imaatay mar walbana soo noqon insha Allah taala waa maasantiin. بسم الله الرحمن الرحيم وحان آدي إليكم سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحت يا شرف أنا سوق بكرين إن أنا يوصل زيارته مقالة نيروبي وحرمت الجيز كأفريقيا ودن أحمل سيدا حلبان ماركتي عدو الشاقي قيب وين نلاش هذا كسوق عادتي أنا وكون ولا إسلي ماركتي حلبان يوسف وهذا المترو iyo qaxootiga Dadaab Refugee Camp iyo Tanga Refugee Camp labadaba ku soo noolaa farxadana soo koobi karin bay tahay inaan dhammaantiin aan maanta maaragtay airportka halkan idinku wada kulmo waxaan idinka mahad celinayaa xilliga qaaliga soo dhaweynta aad iyo aad ka qiimaha badan waxaan rajaynayaa maalmahan soo socda inaynu xil isku helno hadii Ilaahay yiraahdo waana farxadana soo koobi karin maaragtay oo Ilaahay lagu shukriyo inaan fursadan isku helno aad iyo aad baad mahadsantiin. Xamse waa wiil dhalinyaro Soomaaliyeed kaasi oo u ah madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden la taliyaha qaaska. Xamse maalmahan inta badan ku joogay geeska Afrika booqasho oo maanta ugu dambeyntii uu ku soo gaaray magaalada Nairobi ee dalkani Kenya. Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Aqyaar Boundless Media Nairobi.